Bad breath af-urka waa mid ka mid ah caqabadaha bulshada dhexdeeda ka jira. Dadka qaba af-urka waxaa ku adkaata la dhaqanka iyo dhexjoogga bulshada. Waxay noqdaan kuwo gooni u go'an, waxa ayna ka walwalaan markasta sida ay uga bogsan lahaayeen af-urka. Mana ahan wax lala yaabo in dadka af-urka qaba ay isticmaalaan wax kasta oo suuragal ah oo ay isleeyihiin waxa uu keeni karaa in afkaagu carfo oo dadka aysan dhibsan urta afkaaga ka soo baxayda. Waxay u isticmaalaan xanjooyinka ay carafta bidayaan iyo waxyaabaha lagu luqluqdo si ay afkoodu u noqdo mid aanan yeelan ur ay dadka kahdaan. Sidoo kale waxaa jira isku dayo kale oo ay ka mid tahay in qofku uu cadayo afka dhowr jeer si uu afurka uga baxo. Dadka qaarkii markii ay sameeyaan waxa loo yaqaano self care amaba ay kor u qaadaan heerka nadaafadda guud ee jirkooda iyo afkooda, waxa u suurta gasha in afurkii uu ka baaba'o. Balse dadka qaarkii wax kasta oo ay sameeyaan iyo wax waliba oo ay isticmaalaan uma suurta gelido in afkoodu uu noqdo mid caadi ah oo aanan lahayn ur ay dadku kahanayaan. Sababtuna waa kala duwanaanshaha ay kala duwan yihiin waxyaalaha keena af-urka. Dadka qaar waxaa af-urka ku keena nadaafadda afka iyo ilkaha oo liidata, halka kuwa kalena ay ku keenaan cudurro ama caafimaad darro soo wajahday oo noqon karta mid ka jirta afka, ilkaha, xeradka amaba cunaha. Sidoo kale cuntooyinka qaarkood ee aan cunno ayaa waxa ay leeyihiin nooc ur ah oo markii la dheefshiido cuntooyinkaasi waxaa lagu daraa dhiigga, kadibna waxa ay tagaan sanbabka, waxa ayna keenaan nooc ur ah oo gooni ah taasi oo dadka ay kahan karaan. Cuntooyinkaas waxaa ka mid ah toonta iyo basasha. Haddii qofka uu leeyahay af-ur uu dareemayo in dadka ag jooga ay kahanayaan, isaguna uu dadaal kasta uu sameeyey oo afka uu ku nadiifiyey aysan waxba iska bedelaynin, waxaa habboon inuu booqdo dhakhtar si uu u ogaado sababka keentay af-urka isla mar ahaantaana looga daaweeyo. Waxyaalaha sababa af-urka intooda ugu badan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano poor dental hygiene amaba nadaafadda ilkaha oo aad u liidata. Haddii aadan ilkahaaga nadiifin maalintii 2 jeer isla mar ahaantaana aadan isticmaalin daawada ilkaha lagu nadiifiyo, waxaad khatar ugu jirtaa in ilkahaaga ay ku samaysmaan waxyaalo loo yaqaano plaque, kuwaasi ku ururaya ilkaha hoostooda isla mar ahaantaana keenaya in xididkaagu uu yeesho meelo dulduleela ah oo ay ku samaysmaan wasaqada. Kadibna qofku waxaa halkaasi uga imaan kara khatar ka badan af-ur oo ay ka mid tahay inuu ku dhaco suus amaba waxa loo yaqaano dental caries. Dadka qaarkii waxay qabaan xaalad loo yaqaano dry mouth ama afka oo qalala. Saliifada amaba caliyada afka waxa ay ka dhigtaa mid qoyan, waxa ayna ka hortagtaa cudurro fara badan oo ku imaada haddii iyada la waayo. Caliyadu waxa ay sidoo kaleeto nadiifisaa afka, waxa ayna ka saartaa walxa kasta oo keeni karo af-urka amaba neefta qofka oo aan wanaagsanayn. Xaalad loo yaqaano xerostomia amaba dry mouth ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadataa inuu af-ur yimaado. Sababtuna waxa ay tahay yaraanshiyaha uu yaraaday soo deynta caliyada amaba saliifada ayaa waxa ay keenaysaa afka inuu qalalo, kadibna waxaa imaanaya afqaleelkaasi darteed in hawada qofkii ay xumaato. Sida caadiga ah afka waxa uu qalalaa xilliga la hurdaayo, balse haddii intaasi ka badan oo afqaleyl oo qofku uu isku arko xilliyada uu soo jeedo, waxa uu u baahan yahay inuu dhakhtar booqdo. Sidoo kaleeto caabuqyada iyo infekshanada qaar ee ku dhaca sanka, afka iyo cunaha waxa ay qayb lixaad ka qaataan in qofku uu yeesho af-urka. Waxyaalaha kale ee muhiimka ah ee sababa waxa loo yaqaano gastroesophageal reflux disease oo ah mid ka mid ah cudurrada calaamadahooda ay Soomaalida u taqaano gaaska. Dadka leh calaamada loo yaqaano laabjeexa ama heartburn-ka waxa ay leeyihiin af-ur daran. Waxaa kale oo iyadana jirta isticmaalka daawooyinka qaarkood waxa ay leeyihiin af-ur. Sidaa daraaddeed, si qofku u ogaado waxa keenaya af-urkiisa, waxaa habboon inuu booqdo dhakhtar isla mar ahaantaana caafimaadkiisa ka warhayo, maadaama ay xaaladaha qaarkood ee keena af-urka yihiin xaalad caafimaad darre oo ka jirta meel ka baxsan afka.